بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan fariintan idinka soo dirayaa jaamacadda Edna Aadan iyo cisbitaalka Edna Aadan ee ku yaala magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland. Sida aad u ogtihiin jaamacaddu waxay soo dhaweysaa arday badan oo ka kala timid gobollada Soomaaliland oo dhan. waxaanu kaloo soo dhaweynaa arday badan oo dalal kale ka timid. dalal Afrika ka yimaadaan dhowr arday Yemen ka timaada ayaa nala joogtaa. alxamdulillah ardaygii wanaagsan ee wax baranaya ee aqoontiisa kordhisanaya meeshuu doonuu ka yimaadaba waanu soo dhaweynaa. magacaygu waa Nabiha Cabdillaahi Jibriil oo dhigata jaamacadda Edna Aadan gaar ahaan kuliyadda Veterinary and Agriculture sanadka koobaad. waxaan jaamacadda ku doortay waxay leedahay beerihii dalaga iyo kuwii xoolaha labadaba ardaygana caawinaya. magacaygu waa Nasrin Axmed Ibrahim dhigata jaamacadda Edna Aadan kuliyadda farmasiga sanadkii labaad. waxaan jaamacadda ku doortay waxay leedahay farmasi ballaaran oo ku habboon barashada dawooyinka. magacaygu waa Sihaan Maxamed Cusmaan oo dhigata jaamacadda Edna Aadan gaar ahaan kuliyadda nafaqeynta and nutrition. waxaan ku doortay jaamacadda waxay leedahay manhaj ku habboon kuliyaddan. magacaygu waa Nuura Xasan Ibraahim dhigata jaamacadda Edna Aadan kuliyadda kalkaalisooyinka sanadkii labaad. jaamacaddan waxaan ku doortay waa jaamacaddii ugu horreysay ee bilowda kuliyaddan. magacaygu waa Siciid Cali Xasan waxaan dhigtaa jaamacadda Edna Aadan gaar ahaan kuliyadda shaybaadhka waxaan hay sanadkii koowaad. waxaan jaamacadda Edna Aadan ku doortay waxa ay leedahay jaamacadda Edna Aadan shaybaadh caalami ah oo tayo sare leh. magacaygu waa Siciide Bile Ibraahim dhigata jaamacadda Edna Aadan gaar ahaan kuliyadda dhakhaatiirta ilkaha. waxaan ahay sanadkii afraad. waxaan ku doortay waxay leedahay laab ilkooda aad u qalabaysan. magacaygu waa Muuna Naasir Maxamed oo dhigata jaamacadda Edna Aadan gaar ahaan kuliyadda umulisooyinka sanadka saddexaad. waxaan ku doortay jaamacaddan waa jaamacadda ugu tayada fiican ee dalka oo dhan kuliyadda. maxaa cusub kuliyadda business accounting waa kuliyad hab casri ah loo baran doono isla markaana ay dhigi doonaan macallimiin khibrad iyo waayo aragnimo dheer u leh oo soo dhigayay muddo dheer kuwaas oo iskugu jira ajaanib iyo muwaadiniin. maxaa cusub kuliyadda computer science-ka ee IT-ga oo loo baran doono hab casri ah oo isla markaa ay ku dhigi doonaan macallimiin khibrad iyo waayo aragnimo u leh oo isla markaa iskugu jira muwaadiniin iyo ajaanib. magacaygu waa Suhayb Ibraahim Cabdiraxmaan dhigta jaamacadda Edna Aadan gaar ahaan kuliyadda caafimaadka iyo qalliinka sanadka saddexaad. waxaan ku doortay jaamacadda Edna Aadan waxay leedahay dhakhtar caafimaad. maxaa cusub waxaa cusub labada kuliyadood ee masterska ah ee kala ah Master of Public Health iyo Master of Medical Microbiology Lab oo loo baran doono hab hufan oo casri ah. waxaad ogtihiin waxaan ku caanbaxnay caafimaadka. jaamacaddii ugu horreysay bilowday tababarka kalkaaliyayaasha iyo shaybaadhka iyo dawayaqaanada iyo dhakhaatiirta iyo ilkaha iyo waxaasaanu sameynaynay. dabcan kuwii naga kasoo qalin jabiyey jaamacaddan gobolladaas Somaliland oo dhan iyo dalal kaleba ay ka shaqaystaan ayaad kolley garanaysaan ood la socotaan. alxamdulillah ilaahayna la qabtay ee ardayda nagu gacan qabtay inay heerkaa wanaagsan ee ay aqoonta ka gaadhaan meeshay tagaanba ay tartanka kaga qaadaan dadka la soo tartama ilaahay taa suuro geliya mahaddaa leh.